السلام عليكم. لوسيل magaalada mustaqbalka. magaaladan dhowr sano ka hor ma jirin, mar dhow ayaa la dhisay gebi ahaanba magaalo cusub. maanta waxaan ka hadlaynaa sababta magaaladan loogu magacaabo magaalada mustaqbalka, madiinatul mustaqbal. inta aanan sii gelin fiiro gaara dhammaan muuqaalada iyo sawirada mawduucan haddii ay noqdaan kuwa ku saabsan dawxa ama luuseel, si boqolkiiba boqol annagaa leh kaamirada ogaansha ayaan ku duubnay. waa taxaddi ah in aanan haba yaraatee wax kale aanan adeegsanin muuqaalkan, xitaa haddii ay noqdaan soo xigashada il kale. waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto bilow fiican dhinaca muuqaal qaadidda. 18 kilomitir waqooyiga dawxa caasimadda qatar dhowr sano ka hor waxay ahayd deegaan saxare ebera, laakiin maanta waxaa ku yaalla magaalo casri ah, luuseel, magaalada mustaqbalka. waxaan go'aansaday in aan dejiyo jadwal samaynta muuqaal ku saabsan magaaladan. kadib qorshayn ayaan ku dhaqaaqay duubidda magaalada si aan horta uga bilowno meesha aan joogno. muuqaallo kale oo dalkan qatar ku saabsanna way xigi doonaan insha allah. dalkan qatar waxaa jira waxay ku magacaabaan ru'yatu qatar, aragtida qatar, oo ah in dalkan 2030 uu noqdo dal horumarsan dhinac walba. sidaas darteed qofkii sanad ka hor qatar ka tegey hadduu maanta ku soo laabto ma uu aqoonayo sida uu dalku isu beddelay. wuxuu noqday dal kale, bil walba waxbaa dalkan iska beddelo. dhul shalay saxare aad ku ogayd ayaad maanta ugu imaani magaalo dhalaalaysa. arrinkan wuxuuna siinayaa rajo ah in dal burbursan eber laga soo bilaabi karo. magaaladan weli qayb ka mid a ayna dhammaystirmin waxay qaadeen 5,000,000 qof ku dhowaad, dad isugu jira shaqaale iyo weliba dad deegaan ah. waxaad ku arkaysaa bunuugta iyo dhammaan adeegyada daruuriga. waxaa xusid mudan in uu ku yaalla mid ka mid a garoommada lagu qaban doono koobka adduunka 2022 garoonka luuseel. weli ma dhammaystirmin, taasoo ah in ay mamnuuc tahay in la sawiro. magaaladu waxay ku teedsan tahay xeebta biyaha khaliijka dhinaca bariga qatar, waxaana raacsan dhowr jasiiradooda ku yaallo gudaha biyaha khaliijka. korneeshka ama xeebta magaalada waa meel aad u qurxan oo ay dadku soo aadaan, gaar ahaan maalmaha fasaxa. waxaan isku soo aadiyey waqti ay yar tahay dadka jooga arrimo la xidhiiro in mujtamacaadka carabta ay aad iyo aad khusuusiyaadkoodu halis u tahay. waxaa macquul ah in adigoona u qasdaynin uu qofku dhaho kaamaradaada ayaa igu aadanayd, ama kaamaradaada waxay ku aadanayd maxaarimtayda. waxaan ula jeedaa ehelkiisa haddii ay la socdaan. qaanuunka dalkan ayaana dhigaya in uu yahay mamnuuc sawiridda qof asagoona raalli ka ahayn, weliba ciqaab la isbarsiinayo haddii aad qof aanan raalli ka ahayn sawirto kadibna uu ku dacweeyo. arrinkan oo ah in khusuusiyaadku dadku ay aad iyo aad muhiim u tahay. sidaas darteed waddamada carabta inta badan dhallinyarada yuutubarrada ah ee sameeya xitaa barankiska waxay la kulmaan caqabado in qof muuqaal uu soo geliyo kadibna qof uu ka dacwoodo. haddaba si aan uga fogaado mashaakil aanan u baahnayn ayaan doortay waqti ayna dad badan joogin in aan soo duubo. inkastoo sawirrada dhallinyaradan damaashaadaya aan duubay anigoo iska ilaalinayay wejiyada dadka aanan ayaga ka ahayn intii aan awoodo, sidaan ayuuna xaalku ahaa. dalkan waa muslim dabcan, sidaas darteed dhowrkii mitirba xeebta lagu socdo waxaa ku yaala sajaayado loogu talagalay in lagu tukado. sajaayado diyaarsan oo la kala jiidayo mid imaamka u gaar ah iyo inta kale. runtii waa fikrad fiican fudaydka in salaada lagu tukanayo si jamaaca ah.
magaaladu waxay leedahay shabakad khad tareen dhulka hoos maro inkastoo weli isteeshinada luuseel ayna shaqaynaynin markii laga reeba hal mid waxaa la rajaynayaa in la furi doono bilaha soo socda laakiin isoo raaca si aan u aragno tareenka dhulka hoostiisa mara ee dalkan qatar mitro addawxa dhismo sidaan haddaad xaafadaha ku dhex aragto waxaad ogaataa inuu yahay station mitro dhulka hoostiisa maro waxaana halkan looga yaqaanaa mitrow addawxa 2018 ayaa la furay aad ayuu nadiif u yahay heer aad u malaynayso in aad fadhida guri caadi ah fadhigay in guri caadi lagugu martiqaaday sida uu nadiifka u yahay tareenka waxaa loogu talagalay in uu isku xidho dhammaan garoomada koobka adduunka 2022 iyo weliba gaadiid inuu u noqdo dadweynaha caadiga ilaa hadda waxaa shaqaynayo 37 xarun maadaama in qofku gaari helo aad u sahlantahay dalkan muwaadiniinta qadariintana ay gawaarida ugu qaalsan ama ugu dambeeya wataan waxaa yar dadka raacayo ayadoo la wada og yahayba sida uu nadiifku u yahay markii xilliyada qaar laga reebo dabcan aad uma buuxo taasoo ah in uu yahay wasiilada labaad ee isgaarsiinta in gawaarida shakhsiga caadiga ay yihiin wasiilada koowaad ee gaadiid ahaan loo raaco kadibna uu ku soo xigo mitrooga dhulka hoos maro waddankan qatar waxyaabaha lagu ammaano oo cajiibka ayaa ah nidaamka wax walba in ay nidaamsan yihiin xataa dadayoogaas ka imaada waddamadaas markay imaadaan ayagoo fikrad hordhac oo qaldan ka sii aaminsanaa cid walboo muslima inta badan dalalka muslimiinta ma kala saaraan laakiin markay imaadaan waddamadan iyo tusaaraan xataa imaaraadka carabta halkan kama hadlayna siyaasad nidaamka ka jira aad ayay ula tacajubaan nidaamka nadaafadda tareenka qaybta dumarka inay gooni tahay qaybta raggana ay gooni tahay ayna jirin cid isku saqarjaamayso gabar baa la faraxumeeyey gabar baa la taabtay gabar baa la jiiday kama jirta haba yaraatee waxaas ma arkaysid korneeshka ama xeebta magaalada luuseel waxaa ku yaallo maqaayada ama kafeteriya la fadhiisto halka muuqaalka badda biyaha khaliijka uu hortaada ka muuqanayo waa meesha aniga shakhsi ahaan aan ugu jeclahay in badan ayaana fadhiistay oo aan muuqaallo ku diyaariyey magaaladan luuseel sida noo muuqato weli dhisma ayaa ku socda waxayna u kala qaybsantaa 2 qaybood waqooyiga luuseel oo aanan weli dhammaystirmin iyo koonfurta luuseel oo inta badan dhammaystirantay waxaan rajaynayaa in aan wax ka ogaanay magaaladan luuseel waxaanan rajaynaynaa insha Allah sidoo kale in maalmaha soo socda aan samayno muuqaalo ku aadan dalkan qatar iyo mustaqbalka muuqaalo ku saabsan caalamka kale yaa og mawduucan intaan ay ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته